السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج دعدونيكي دونيدا قيبتيسي كوباد. دعدودا كوباد waxaan ku soo qaadanaynaa noloshii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dunida muslimka ah iyo tan aan muslimka ahaynba ma xaqiri karaan saameyntii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ee adduunka iftiimisay ee u horseeday xasilooni iyo isqiimeyn nafeed. Ka hor intii uu Nabi Muhammad soo ifbixin sallallahu alayhi wa sallam oo uusan diinta islaamka soo bandhigin, bariga dhexe waxaa deganaa qabiilo yaryar oo si joogto ah isku dagaali jiray. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxa uu mideeyay dhammaan qabaa'ilkaas isagoo oo dejiyay hadaf iyo micno ay isku hal meel ugu noolaan karaan. Waxa uu isku meel keenay ciidamo beeladyadii dabadeedna gacmaha isku geliyay oo walaalo xigta ah ka dhigay. Inkastoo weli dhiig daadanayay oo ay dagaalo jireen, haddana ma aysan ahayn dagaalo kuwa qabaa'il waxay ahaayeen dagaalo ka dhan ah kuwa ka hor yimaada diinta cusub iyo risaalada rabbaaniga ah ee xagga Eebbe ka timiday. kadib markii Nabiyullaahi Muhammad uu isku keenay dhammaan qabaa'ilka ku noolaa bariga dhexe, ayaa ay diinta islaamku waxay gaartay casr la yiraahdo casrigii dahabiga ahaa 786 ilaa 1258. waxaa xusid mudan in xilligaas ay Yurub mugdi ku jirtay. diinta islaamku waxa ay gaartay heer ay hogaamiso xisaabaadka iyo sayniska adduunka. Roomaanka iyo Griigu waxa ay loo xadaarteen culumtii xilligaas la qoray ay muslimiintu soo kordhiyeen. waxaa ka mid ahaa helidda number 0, xisaabta aljabra, habka dhisimalka ee xisaabta, sidoo kale kofeega waxaa la soo saaray xilligaas. xasiloonida Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uu keenay adduunka ayaa waxa ay sababtay in ilbaaxnimo heer sare ah la hiigsado oo dhaqamo kala duwan ay meel kasta ku baahaan iyadoo aan wax cabsi ah jirin. laga soo bilaabo dhalashadii diinta islaamka ilaa maanta waxay noqotay diinta ugu saameynta badan uguna rumaynta badan